بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan rabaa inaan idin la wadaago saddex shay oo bini aadamku ay aad uga cawdaan iyo dawadooda taasoo ay ku jirto isla dawadoodana ay rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu nagu waramay. Sidaad ogsoon tihiin waxaa jirta xadiis oo wariyay Tabrani oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam laga wariyay wuxuu leeyahay qaala alayhi salatu wasalam fi xadiis rawahu Tabrani حسنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وأعدوا للبلاء الدعاء. سيدا أن أكسنتهين سدح عن شيء بين آدم كأد بيوعودان أو حديث كرسولك صلى الله عليه وسلم سدح هذا الشيء مركو شيء داود إذا مربيض البوشة والرعية حسنوا أموالكم بالزكاة يعني هنتدينا كو ناجية زكاة هدي هنتدا كعب سنة سنين لقا قاتو haddii hantida aad ka cabsanayso inay kaa dhamaato haddii hantidaada aad rabto inay kuu barakowdo waxaa waaye zakadii inaad ka bixiso. zakadu waa xaq ilaahay uu kuu leeyahay marka waa inaad zakada hantidaada aad ka bixiso. xasinuu amwaalakum bizakaat wadaawu mardaakum bisadaqa midkiina xanuunsan ku daaweeya sadaqo. yani hadduu mid inka xanuunsan yahay hadduu xanuun jiro waa inaad sadaqa aad la baxday. sadaqa wad iyo geeri furata ayay Soomaalidu dhahdaa. midda saddexaad waa ciddu lilbalaa'i ducaa. balada ama sharta ama wax walbo qofka bini aadamka dhibaya waxaa loo baahan yahay inuu qofku ducada inuu yani ilaahay uu hortago oo ilaahay iga badbaadi. sidaas daraaddeed ilaahay subxaanahu wa tacaala ayadana uu ka badbaadinayaa. run ahaantii saddexdaas shay ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu dawadooda noo sheegay waxaa loo baahan yahay inaan ku wada dhaqanno. xaqiiqatan rasuulka sala allahu alayh wasalam shay ma jiro annaga khayr noogu jira ilaa wuu naga waramay. sidoo kale shay ma jiro yani dhib nagu ah ilaa ayadana wuu naga waramay. sidaas daraaddeeda waxaan leeyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.